سمتلي عانا سيما قوى ديخسيا وداني كسفوي اندوب كلا سارو مدين سويني ساكينو أينا على نسيه وكاسويني بوما نسيه ساكينو أينا على نسيه waxaan aad u soo dhaweynayaa kuna faraxsanahay inuu madaxweynuhu uu ku yimaado safarkiisa ugu horeeyay tan iyo intii la doortay oo nagu soo booqdo uu arko wadanka uu arko dadkiisa oo maxaan ku raahdaa aad ugu faraxsan inuu soo booqdo uu yimaado runtii waxaan dhihi karaa anigu ka dhalinyar ahaan aad baan u sugeynay taari markii aan maqalnay inuu madaxweynuhu soo socdana waxaan aad ugu rajoonahay inuu na soo gaaro madaxweynuhu waxaan leenahay waxyaalahan ku jeclaan waxa kamid ah wadanimada waxyaalaha anaga nagu jira waxa weeyaan lahaansho inaan wadanka leenahay madaxweynaha waxaan ka dareemeynaa ku aragnaa inuu aaminsan yahay madaxweynaha aaminsan isagu dalkan inuu leeyahay horumarintiisa bilicdiisa amnigiisa isku xirka dhalinyarada Soomaaliya inay noqoto Soomaaliyadii hore intaas madaxweyne farmaajo ku jirta inta nagu jirto intaas isku ay soo dhaweynaysa madaxweyne waxaan leenahay soo dhawo ku soo dhawo dhul udug ku soo dhawo garowe سمتلي عانا سيما قوى ديخسيا وداني كسفوي اندوب كلا سارو مدين سويني ساكينو أينا على نسيه وكاسويني بوما نسيه ساكينو أينا على نسيه runtii madaxweynaha waxaan rabnaa inaan baahiyo badan oo asaasi u ah dhalinyarada Puntland inaan kala hadalno kuwaas oo ay ugu horeeyaan shaqo abuurka waxaan rajaynaynaa 2018 inay jiraan mashaariic badan oo loogu talagalay arrimaha dhalinyarada runtii marka baahiyaha ugu muhiimsan aan rabno inaan kala hadalno madaxweynaha waxay tahay guud ahaan dhalinyarada reer Puntland waxa ay u baahan yihiin iyo magaranaysaa sidii aan uga gudbin lahayn caqabadaha jira insha Allah taala waxaan ku faraxsanahay waxaanu jecelnahay waxaanu soo dhaweynaynaa waxaanu hari habeen u helanahay waxa weeyaan soo dhaweynta madaxweynaha dawladda Soomaaliya Mr. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sidii loo ogeeto looga taageerayay aan wali taageeradiisa aan kala go'in oo wali looga jecel yahay Puntland oo wali looga danaynayo Puntland inuu yimaado waa wali sidii ma taqaana looga doortay 8 February ba ka dhici doonta insha Allah taala deegaanada Puntland madaxweyne ku jecelnahay madaxweyne waa ku sugeynaa adaana wali ku riyaaqayna insha Allah taala waxaad aragteen sida ma taqaana magaalada loo bedelay waad aragteen sida magaalada loo qurxiyay waxaasna waa adiga awga waxaasna waa jacayl adiga lagu qabo madaxweyne ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii weeye in badan baan sugeynay inaan noo timaadin ilaa xilka inta qabatay ilaa maanta waa ku taagnayn madaxweyne intii aad xilka haysay oo koobnayd madaxweyne waxa qabatay shaqooyin aad iyo aad u fara badan madaxweyne Soomaaliya mugdi awal ku jirtay mugdigii wax ka saartay maanta Soomaaliya waa lagu xisaabtami karaa meel kasta oo adduunka kamid ah calankii Soomaaliya waa ka hirgalay dawladnimadii waa ka dhabaysay maamul goboleedii waa ka dhabaysay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu kugu guuleeyo hawshaas qabatay oo fiican